bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka telefishinka qaranka aniga waa faysal muuse qodobada wararka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay dib u eegidda dastuurka ku-meel gaarka ee jamhuuriyadda oo ay ka qayb galeen gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka wasiirada warfaafinta iyo cadaaladda ayaa hortagay golaha shacabka iyagoo horgeeyey xeerarka musuq maasuqa iyo caafimaadka dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa fadhiga guud ee golaha qaramada midoobey ka jeediyey warbixin uga hadlaya xaaladda soomaaliya dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa ka codsaday golaha shacabka in ay meel mariyaan xeerka saxaafadda soomaaliya oo baarlamaanka waa golaha shacabka horey uu ansixiyey hase yeeshee wax kabadal lagu sameeyey wararka dhinaca dibadda ee aad caawa warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda ciraaq ayaa sheegtay in guulo hor leh ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto kooxda argagixisada ee daacish intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka aad ku daawan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale la socda goordhow insha allah mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa gudoomiyey kulan looga hadlayay dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dardargelintiisa waxaana ka qaybgalay gudoomiyaashada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya warbixintaasi cali baashi cabdulaahi ayaa faahfaahinaya kulankan uu shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa looga hadlay qaabka ugu wanaagsan ee loo dardargelin karo dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka si loo dhammaystiro ka hor dhammaadka sanadka 2018 kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha golayaasha baarlamaanka kusimaha ra-iisul wasaaraha wasiirka dastuurka guddiga la socoshada dib u eegista labada aqal ee dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyagoo si wanaagsan uga hadlay sida looga miro dhalin karo dib u eegista dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in hay-adaha dastuurka dalka looga fadhiyo in hab iskaashi ah looga miro dhaliyo hawsha dib u eegista dastuurka si shacabku codkooda wax ugu doortaan mustaqbalka dhow kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mahdi maxamed kuuleed ayaa shirkaas kadib nuxurka la wadaagay warbaahinta waxaa lagaga hadlay arrimaha muhiimka ah ee dib u eegista dastuurka oo ay ka mid tahay in habka federaalka hore loo dhaqaajiyo kala xadaynta awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada midaynta dastuurka ee dasaatiirta heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedada nidaamka booliska ee federaalka ah nidaamka garsoorka ee federaalka ah doorashooyinka hal qof iyo hal cod dhammaystirka shuruucda suurtogelinaya doorashooyin xor ah sharciga nidaamka axsaabta sharciga jinsiyadda sharciga diiwaangelinta muwaadinka iyo sharciga diiwaangelinta codbixiyaasha waxyaabahaasoo dhammi waxay hoos imanayaan dastuurka dib u eegistiisa hirgelinta qodobada aasaasiga ee 133 iyo 134 iyo ugu dambayn in la yegleelo heshiis siyaasiya oo marka la dhammaystiro waxyaabahaasoo dhan gundhig u noqon doona waxaa la isla gartay in loo baahan yahay in shaqada lana qaybsado haddana qorshe hawleed dhammaystiran lasoo bandhigo uu ka soo baxo waxaa afka qaraad lagu yidhaha road map midaysan oo ay ku wada shaqayn doonaan wasaaradda dastuurka guddida madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddida madaxa bannaan ee labada aqal ee sharci dejinta ka kooban oo iyaguna qayb weyn ka ah saddexdaa guddi iyo xafiiska madaxweynaha oo madaxweynuhu yahay ilaaliyaha dastuurka hormuud oo hoggaan u ah iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda dastuurka kulligoodba waxa ay soo bandhigi doonaan muddo 10 cisho gudahood ah qorshe hawleed tafatiran oo sida loo shaqaynayo iyo sida lagu hirgelinayo dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran ugu dambaynna ay tahay sanadka 2018 dabayaaqadiisa
in laga shaqeeyo dastuurkii oo dib u habeyn lagu sameeyey si tafatiran looga shaqeeyey. dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee dalka waxa uu ka mid yahay howlaha hortebinta leh ee horyaala dowladda federaalka ee Soomaaliya. 2012 ayaa la go'aamiyey in dalku uu ku shaqeeyo dastuurkan qabyada ee kumeel gaarka ah kaasoo meesha ka saaray nidaamkii axdi qarameedka ee lagu soo dhisayay dowladihii kumeel gaarka ah ee burburkii kadib dalkan loo yeegleelay. tani waa fariin cad oo muujinaysa in dalku u baahan yahay in dastuurka dib loo eego afti qarana la geliyo si dalku nidaamka xilligan marka uu dhammaado uu ugu dareero doorasho qof iyo codkiisa. Ali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. wasiirada caafimaadka iyo cadaaladda ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa hortagay golaha shacabka iyadoo su'aalo laga weydiiyey xeerarka dhinaca musuqmaasuqa iyo caafimaadka. warbixintaasi Ibraahim Guudle Saaq ayaa faafahinaya. ugu horeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa golaha shacabka ka hor aqrisay hindis sharciyeedka caafimaadka dalka oo ay wasiirku sheegtay in diyaarintiisa marxalado kala duwan ay soo martay iyagoo la kaashanaya khubaro dhanka caafimaadka. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay ku howlanayd hindisahan 40 sano ee soo dhaafay. waxay sameyn hindisahan ku bixisay dadaal badan si ay u horumariso caafimaadka bulshada ugana hortagto wax kasta oo waxyeello u keeni kara caafimaadkooda. wasaaraddu waxay la tashatay hay-ado ay qusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda waddanka ka jirta isla markaana loo hubiyo inuu waxtar u leeyahay bulshada. haddii aan soo koobno hindis sharciyeedkan wuxuu ka kooban yahay 62 qodob oo inta badan ku wajahan samaynta golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka iyo xeerka guud ee golahaas sida qaab dhismeedka golaha, xeer nidaaminta ay ku wada shaqeynayaan, guddigooda fulinta, qaabka lagu soo xulayo golahaas iyo sidii kale waajibaadka saaran. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa wasiirka su'aalo ka weydiiyey hindis sharciyeedka caafimaadka. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysay su'aalaha ay xildhibaanada weydiinayeen waxayna sheegtay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in lagu daro wixii tala oo ay xildhibaanada soo jeediyaan. sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa golaha shacabka ka hor aqriyay hindis sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa. guddigan waa guddi madax bannaan wuxuu la mid yahay guddiyada kale madax bannaan wuxuuna ku qaaxinahay dastuurka kumeel gaarka qodobkiisa 11C masacaab marka guddi awood u lah inuu baaro ka hortago oo xakameeyo musuqmaasuqna dabcan waddankeena waxaa lagu tuhmay in uu musuqmaasuq ka jiro sidaad ogsoontihiin waddanka sanadkii lasoo dhaafay in nambarka uga horeeyey uu ka galay sidii caalamka ay sheegayaan. marka waxaa loo baahan yahay sharci xakamaynayo iyo guddi xakamaynayo musuqmaasuq. xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa waxa ay su'aalo ka weydiinayeen hindis sharciyeedkan wasiirka iyadoo wasiirkana uu ka jawaabayay su'aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in guddiyada golaha shacabka ee hindis sharciyeedyadan ay quseeyaan looga baahan yahay inay la wareegaan isla markaana dib ugu soo celiyaan golaha maadaama dhammaantood ay si gaara muhiim ugu yihiin shacabka. waxaan leeyahay guddiyada wasaaradihii maanta inta ka hadlay guddiyada qaabilsan waxaan rabaa inay sida ugu dhaqsaale howlahaas ay u soo dedejiyaan talooyinkii iyo intay xildhibaanada ay ka soo jeediyeen iyo wixii ay ku soo diri karaan ay soo cabiraan sida u dhaqsaale ay nagu soo celiyaan. wasiiraduna waa mahadsan yihiin yani dadaalka iyo dhabar adeeg ay sameeyeen. shaqooyinka lidin diray waa idinkana waa ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen. Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
وهاجاك ولي وركا تلفزيون كقرن كياد لا سoctaan wargor dhow naga soo gaarayna garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu sheegayaa in diyaaradii ugu horeysay 27 sano kadib xilli habeen ay ka soo degtay garoonka waxaana si rasmi ah loo daafuray in garoonka diyaaradaha aadan cabdulle uu hadda kadib si habeenkii sida maalintii oo kale u shaqeyn doono iyadoo diyaaradda ka timid magaalada Jidda ee wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ay timid caawa oo sidee in ka badan ilaa iyo 100 qof oo intooda badan la sheegay in ay ku jiraan dad xujeey ah oo soo gutay acmaasha xajka مسؤولين kala duwan oo golaha wasiirada ay kamid yihiin isla markaana uu kamid yahay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kamid ah mas'uuliinta joogta garoonka diyaaradaha aadan cabdulle waxa uu sheegay in garoonka aadan cabdulle hadda kadib habeenkii uu shaqeyn doono isla markaana taa ay abuuri doonto nafis badan oo imaanaya xilliga maalintii ah oo diyaarada ka badan 100 diyaaradood ay ka soo degaan garoonka aadan cabdulle ee magaalada Muqdisho waraysiyo iyo hadaba muuqaalada dhinaca garoonka barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda ayaad ku daawan doontaan sida uu noo soo tabiyay wariyeena Cumar Xasan Cali oo hadda ku sugan garoonka aadan cabdulle waagaaga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay ama ka qabsoomay magaalada New York ee wadanka Mareykanka waxaana khudbadiisa diiradda uu ku saaray horumarka Soomaaliya oo ay sidoo kale ku jirto dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada wariyeena Deeqsoona ayaa warkan New York ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee New York waxaa khudbad taariikhi ah ka soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhambaal salaana uu ka sida madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo dhanka kale faahfaahin ka bixiyay isbedelka ay Soomaaliya gashay iyo halka ay ka timid waxa uu qiray in Soomaaliya ay sameysay horumar la taaban karo Somalia is rising and we are determined to stay the course Soomaaliya hore ayay u socotaa waxaana naga go'an in aan sidaas ku sii soconno hadafkanagu waa in aan ka qayb qaadanaa horumarinta gobolka qaaradda iyo caalamkaba inkastoo ay jiraan marxalado adag haddana waxaan horumar la taaban kara ka gaarnay ammaanka soo celinta sharciga iyo kala dambeynta iyo saldhigidda siyaasadda dalka mudane Kheyre oo ka hadlayay kooxda nabadiidka ayaa xusay in caqabadaha ugu ballaaran ay yihiin dhibaatooyinka argagixisadu ay ku hayaan Soomaaliya Terrorism remains one of our argagixisada ayaa kowka caqabadaha aan wajahayno taas oo saameynaysa caalamka loona baahan yahay in si wada jir ah wax looga qabto haddii aan nahay dowladda Soomaaliya waxaan guulo waaweyn ka gaarnay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo aan ku wiiqnay awoodda kooxdaas annagoo uga mahadcelinayna ciidamada nabad ilaalinta AMISOM oo aan ka helnay taageero ballaaran oo aan hakrasho ku jirin I would like to thank AMISOM for their sacrifice. ra'iisul wasaaraha ayaa khudbadiisa ku xusay ahmiyadda dhalinyarada iyo sida ay xukuumaddiisu tixgelin u siinayso isagoo oo tusaale u soo qaatay Allah u naxariistay wasiir Cabbaas Siraaji oo tusaale u ahaa dhalinyarada Poverty and lack of education and livelihood faqriga waxbarasho la'aanta iyo nolosha adag ayaa ah kuwa sii kordhinaya dhibaatooyinka iyo ficilada argagixisada caalamka oo idil dhalinyarada oo aan loo helin fursado shaqo iyo waxbarasho ayaa sii badinaya ku biiristooda kooxaha dambiilayaasha oo ay argagixisadu ka mid tahay including terrorists khudbadda ra'iisul wasaaraha oo dheereed waxaa lagu xusay in Soomaaliya ay la dagaalamayso musuqa isla markaana dawladdu ku dadaalayso tayeynta ciidanka qaranka iyo sidii loogu dhameystiri lahaa tasiilaadkii ay kula wareegi lahaayeen amniga dalka oo dawladdu ay markaasi diyaar u tahay taabagelinteeda Deeqsoona SNTV xarunta qaramada midoobay New York وهاجاك dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa golaha shacbiga ka codsaday in ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan oo ay ansixiyaan xeerka saxaafadda oo hore golaha shacabka uu ansixiyay hase yeeshee mar kale wax ka bedel lagu sameeyay warbixintan waxaa soo tabinaya mar kale wariyeena Ibraahim Guudleysaq kulanka mudanayaasha golaha shacabka oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso waxa uu golaha ka hor akhriyay xeerka saxaafadda dalka oo wax ka bedel lagu sameeyay sababta
aan wax uga bedelnay oo aan dib idinkugu soo celinay maxay tahay waa tan ugu muhiimsan oo aan rabno maanta inaan isla fahamno sababaha ugu weyn wax ka bedelka loogu sameeyaa waxay tahay saa la socotaan mudanayaal iyo marwooyin xeer walba si uu u dhaqan galo wuxuu u baahan yahay in dhaqangelintiisa ay noqoto mid meel mari karta isla markaana sahli karta in muxuu ahaa xeerkii uu miro dhalo sidaas daraaddeed waxaa soo baxay qodobo runtii aad u adkeyd dhaqangelintiisa bahda saxaafadda markaan la tashanayna ay naga codsadeen in qodobadaas iyagaa la bedelo oo runtii la-aantood aysan dhib noqon lahayd inaan xeerkii dhaqangelino qodobada ugu waaweyn haddaan soo xuso waxaa ka mid ah mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh qodobka 35aad oo odhanaya qofka suxufiga waxaa looga baahan yahay inuu haysto shahaado jaamacadeed oo weliba journalism ah taasoo runtii aad garan kartaan muxuu ahaa conditionkaas isaga caqabadaha uu ku noqon lahaa suxufiyiinteena soomaaliyeed oo ah dad geesiyaal ah dad u huray naftooda dad ku shaqeeya marxalado iyo duruufo adag duruufaha dal ku jira dartoodna loo baahday in muxuu ahaa qodobkaas wax ka bedel lagu sameeyo oo aan wax condition ah suxufiyiinta looga dhigin isagii ayaa waxaan ku bedelnay meeshii ahayd shahaadada lagu qasabka uga dhigaysay inuu qofku leeyahay aqoon iyo xirfad muddo 2 sana kusoo jiray saxaafadda si uu qofkaas u noqdo suxufi ka diiwaan gashan muxuu ahaa dalka oo si rasmi u shaqayn kara sidoo kale qodobka 18aad oo isagana la isla waafajinayay qodobka 35aad oo suxufiga waxaan ka saarnay shuruudihii ahaa aqoonta iyo imtixaanka qodobka 5aad ayaa isagana waxaan ka bedelnay ama aan ka tirtirnay ereyadii oranayay fal dambiyeed haddii uu galo muxuu ahaa in waxaan u aragnay xeerka saxaafaddu iyo faldambiyeedku inuu shuruuc kale dalka leeyahay oo qofkii faldambi gala shuruucdaas kale toos loogu gudbiyo isagana maaragtay waa taas waa ka bedelnay waxaan kaloo iyadana codsigii suxufiyiinta soomaaliyeed nooga yimid kadib markaan wadatashi la samaynay ay codsadeen ganaaxii ku qornaa oo 500 ilaa iyo 3,000 oo doolara la qafiifiyo iyadana waxaan ku bedelnay 300 ilaa iyo 1,500 annagoo u danaynayna suxufiyiinteena soomaaliyeed duruufaha ay ku jiraan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa wasiirka u soo jeediyey talooyin ay u arkaan inay sharciga saxaafadda ay muhiim u yihiin iyagoo qaarkood su'aalo ka weydiiyey sharcigan iyo qodobada wax ka beddelka lagu sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa u sheegay guddiga warfaafinta ee golaha shacabka in sharcigan ay la wareegaan sida ugu dhaqsiyaha badanna markaa shaqadooda ay ka qabsadaan ay dib ugu soo celiyaan golaha si loo ansixiyo waxaan leeyahay guddiga ku shaqadana iyo wasaaradda in mataqaanaa iyagana ay howshooda qabsadaan ay sarkaan aragtidii iyo aalaada ay soo jeedeen xildhibaanada in wax ka bedelay waxaa ku dara kusoo daraan kadibna ay ugu soo celiyaan waa mahadsan yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo su'aalaha xildhibaanada ka jawaabayey ayaa sidoo kale ka codsaday golaha inay ansixiyaan maadaama horey loo ansixiyey haddana wax ka bedel lagu sameeyey annagoo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah waxaa naga go-an inaan kor u qaadno xorriyadda hadalka iyo fikirka isla markaana suxufiyiinta soomaaliya ay noqdaan kuwo si mas-uuliyadii ku dhisan tahay u guta waajibaadkooda taasoo xeerkan uu muhiim noogu yahay inaad muxuu ahaa waajibaadkiina dastuuriga ka gudataan kadibna aad noo meel marisaan ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho kulan looga hadlayay horumarka amniga soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka qaar ka mid a ayaa lagu qabtay magaalada tan caasimadda ee muqdisho wariyeena liibaan cabdicadow ayaa warbixintan nooga diyaariyey shirkan oo looga hadlay amniga dalka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha ayna ka soo qayb galeen wakiillo ka socda waddamada daneeya arrimaha soomaaliya wasiirro ka yimid maamul goboleedyada dalka safiirka midowda yurub u qaabilsan soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo wasiirka amniga gudaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka oo wakhti badan qaatay warbixinno amniga la xidhiirana laysku dhaafsaday markii uu soo gebagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale kulankii maanta dhacay wuxuu ahay saan hore u sheega kulan bil hore bishii hore agoosta la qabtay marka kulankaasuu daba socday
waxyaalaha looga hadlayan wuxuu ka mid ahaa sidii loo dhisi lahaa ciidanka booliiska iyo sidoo kale ciidamada ilaalinta xeebaha sidii loo tayeen lahaa immigrationka iyo nabad sugidda NISA waxa jooga ambassador EU iyo safiiro kale international community way taageeraan saawlo socotaa mission taageeraan waan taageeradu is wadi doonaan sidoo kale hadda waxaan rabaa taageerada in aydan la barbar socoto midda Soomaalida ah waxaa jirtay in dawladda Jarmalka ay baan qaaday inay booliiska Soomaaliyeed ay si gooni u taakuleen doonto sidoo kale dawladda Ingiriiskeedana waxay taageeraysaa NISA ama nabad sugidda sidoo kale Coast Guardka ama ilaalinta xeebaha ayagana waxaa taageeri doono EU Cup sidoo kale wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo amniga caasimadda tan iyo markii howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada qaabilsan inay xasiliyaan caasimadda dalka howlihii meel fiican ay marayaan waxaan rajeynayaa inaan sii labalaabno howlaha xasilinta caasimadda waana mudnaanta koowaad ay siinaysa dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo وبرامجك يهنا حسن على قيره قرحيه بدني فشليين قرحيه هذا كرم كود حسوسته لكن بيش هذا اللي صار ضعفي وان اغسطو بيش سبتمبر ولا الصعداء ان مكان مكرم الجوار اللي صار دغي بيش اغسطو الميدان اللي صار دغي ولا فشيي بيش سبتمبر هورانت الميدان اللي صار دغي ايضا ولا فشليي ciidamadana aad u shaqeynaa waan ugu mahadcelinaa shirkan waxa uu daba socdaa shir bil ka hor lagu qabtay magaalada Muqdisho waana wajigii labaad oo lagu horumarinayo amniga dalka Liibaan Cabdi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa tagay magaalada Puloburte ee gobolka Hiiraan halkaasna waxa uu kulan kula qaatay bulshada iyo maamulka degmada warbixintaasi waxaa soo diray wariyeen halka naga soo warama Ibraahim Maxamuud Geedi hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle isugu jira xildhibaano iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Puloburte ee gobolkan Hiiraan maamulka degmada Puloburte qaybaha bulshada ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay si weyn u adkeeyeen ammaanka degmada Puloburte wafdiga madaxweynaha ayaa waxa ay kulan la qaateen maamulka degmada saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM waxaana kulanka looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay amniga iyo sida bulshada u qayb qaadan karaan in la isku furo wadada laamiga ah gudoomiyaha degmada Puloburte oo odayaasha deegaanka ayaa waxay ka hadleen xaaladda degmada ay ku sugan tahay waxaana ay sheegeen in degmada ay go'doon tahay isla markaana ay aad u adag tahay nolosha shacabka gudoomiyaha gobolkan Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo kulanka ka hadlaya waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan degmada Puloburte looga baahan yahay inay ka qayb qaataan wax walba oo degmada lagu horumarin karo waxayna adinku qabsan adinkaa layna caawin karaaye cidka wax ka soo degayaa ma jiraan adinkaa layna caawinayaa waa laga marangitaanayaa wiilka dhaawamaa laydinka qaadayaa wixii duruufoo jiraa la geyne ma fahamkeen ma raba inaan carabka ku adkeeyo siyaabaha loo tilaabtaa loo qaadi doono tilaabtaan siyaabaha loo qaadayaa shay way noqon doontaa laakiin waxaad ku talagelaysaan waxaynan adinku qabsan cid ina caawin kartaa ma jirto haddaynan adinku qabsan waxa aad qabanaysaan inaad u midaysantihiin ashan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in horumarka degmada ay ku xiran tahay in marka hore laga wada shaqeeyo sidii loo furi lahaa wadada laamiga ah oo kooxda shabaab dadka ku dhibaateeyaan Puloburte waa xabsi dusha ka furan qof xabsi ku jiraane beer ma tacbado iskool ma dhigto caafimaadna meeshii ninka xabsiga xukuma uu geeyo u aadaa waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego halka shay oo idin ballan qaadaa haddii ilaahay idmo in la furo jidka isku xira Puloburte iyo Beledweyne iyo Puloburte iyo Jowhar arrintaas haddii ay dhici weyso wax kaloon isugu imaanaynaa ma jiraan wax kale hana weydiinina saa wax kale suurtagal maba ahane waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta niyadda wanaagsan ee beesha caalamka indhahooda ku soo jeediyo
xaaladda ay ku sugan yihiin magaalooyinka go'doonka oo ay ka mid yihiin buuliburta iyo jalalaqsi. ibraahim maxamed geedi, warbaahinta qaranka, beledweyn. gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada caasimadda ee muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa muqdisho kula kulmay wakiilka u qaabilsan midooda afrika arrimaha soomaaliya iyo taliyaha howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana waxyaabihii ay ka hadleen kamid a amniga. warbixintan waxaa soo diyaariyay wariyaheena wararka gobolka nursicid. aqalka dowladda hoose xamar ayuu ka dhacay kulankan uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed kula qaatay wafdi uu hogaaminayo wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador francisco mandara waxaana wafdigaasi ka mid ahaa taliyaha howlgalka amisom ee soomaaliya jenaraal subagle. kulankan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay dardargelinta howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda, xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada amniga qaranka soomaaliya iyo kuwa amisom. sidoo kale waxaa qayb ka ahaa waxyaabihii kulankaasi looga hadlay sidii madaxda amisom ay u dadejin lahaayeen ka bixidda garoonka weyn ee stadium muqdisho. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa kulan kadib waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka. waxyaabaha ugu muhiimsanaa aan ka wada hadalna waxay ahayd arrimaha security-ga ama xasilinta caasimadda oo amisom runtii qayb weyn mararka qaarkood nagala qaadato oo aan iskaashi ka wada sameyno maadaama amniga magaalada muqdisho uu aada u soo hagaagayay si aan isaga sii kaashan lahayn sidoo kale u dardargelin lahayn. waxaa sidoo kale xusid badan oo aan maanta aada uga hadalna ayadana arrinkii ay ku aadanaa mararka qaarkood shilal ka dhaca magaalada muqdisho oo runtii shacabka gaara inaan qorshe ka wada sameynay oo maadaama annaga aan nahay codkii shacabka oo codkii dadka muqdishaawiyiinta ayadana waa ka wada hadalnay annagoo is-afgarad wanaagsan ka sameynay qorshena ku heshiinay oo ilahay idinkiisna dee mas-uuliyad iyo la xisaabtan caada ee markasta imaan doonto. waana uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo arrintaasna aan maanta uga wada hadalnay ayagana uga jawaabeen. waxaa sidoo kale ayadana maanta aan ka wada hadalnay arrintii aadka loo wada sugaya ee ah soo wareejinta garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho oo aan mar kale ku celinay codkeena haddii aan nahay gobolka banaadir. ka duq magaalo ahaan ahmiyad weyn ayaa noo leedahay isboortiga maadaama uu ka mid yahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada. duqa magaalada muqdisho mudane taabid ayaa sidoo kale sheegay in la sameeyey guddi isku dhaf ah oo ka socda gobolka banaadir iyo amisom si loo dedejiyo in ciidamada amisom ay ka baxaan garoonka stadium muqdisho. waxaan ku heshiinay in guddi loo saara ka socda dowladda hoose ama gobolka banaadir guddi ka socda iyo amisom guddi ka socda oo in la dedejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan soo wareejinta ama in gacanta lagu soo celiyo. annagoo uga mahad celina amisom runtii muddadii dheereed oo ay ilaaliyeen garoonka oo ayna runtii gacan wanaagsan ku hayeen si uusan u baabi'in infrastructure-kii ama dhismihii garoonka. ayaduna waa ku heshiinay oo guddiga isla berri ayuu xaggeena ka howlgeli doonaa kadibna ilaahay idinkiis dhowaan ayaa gacanteena kusoo laaban doona annagoo markaas kadibna ka howlgeli doono kaashanayna wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada dib u dhiska iyo dayactirka garoonkaas muqdisho oo qorshaheenuna uu yahay in dhowaan garoonka muqdisho uu kusoo laabto isagoo shaqaynaya ummaddana ka faa'iidaysanayso. marka intaa ayaan maanta ka hadalnay. runtii awal marka hore qorshaa soo socday waa horta runtii barnaamij oo saddex geesood ah. qaybna wuxuu ahaa arinta gobolka banaadir ama dowladda hoose xamar iyo sidoo kale booliiska ciidamada booliiska oo ayagana runtii xilwareejinta qayb ka noqonaya hadhowti iyo ciidamada amisom oo hadda ayaga meesha ku sugan. waxaan ku heshiinay guddiga saddex geesood sida ugu dhaqsaaba inay howlgalaan laakiin waxaan dadka ugu bishaareynaya waa dhowaan ma daahi doono. guddigaas ayaa ku dhawaaqi doona taariikhda laga baxaayo ummaddana si ay ogaadaan marka guddi ayaa loo xilsaaraa guddigaas aan ku dhawaaqi doono. nuur saciid taaliid raada iyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka Puntland gaar ahaan kuwa xeebaha bari ayaa gacanta ku dhigay dooni siday hub sharci darro ah waxaana lagu hayaa baaritaano halka ay ka timid iyo halka ay ku sii jeeday doonidaasi. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaheena Maxamed Muuse Tarsan. ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee BNBF ayaa deegaanka Mareero oo 9 kiiloomitir boosaaso u jira ka soo qabtay doonidan oo lagu magacaabo Afruqaan oo waday hub sharci darro ah oo kala ahaa hubka culus iyo kan fudud waxaana uu isugu jiraa qoryaha loo yaqaano dhishiikaha BKM-ka aakaha baastoolado iyo rasaastooda. inkastoo hubkan la qabtay haddana ciidamada Puntland uma suuro gelin inay gacanta ku soo dhigaan hubkan ciddii waday iyo kuwii loo waday
waxaana xusid mudan in hubkan uu intan ka badnaa qaybtiisii kalena ay qabteen ciidamada booliiska puntland gaashaanle maxamed maxamuud xasan oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha puntland ee BNBF ayaa sheegay inay ku guulaysteen soo qabashada hubkan iyo doonidii waday ayna ku raad joogaan raggii soo raray iyo kuwii loo waday. waxaan u sheegaynaa bahda meediyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yidhaahaa alfurqaan oo ka soo qabannay bariga boosaaso mareero oo u jirta 9 kilomitir magaalada boosaaso dhinaca bariga. taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 daqiiqo AM. waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK-43 iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro sida aad u arkayseen ayadoo laga dejinayo doonta alfurqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan. hubku waa ka badnaa 2 qaybood buu ahaa. qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aan ciidamadeenna badda BNBF ay qabatay. qaybtii dhulka lagu dejiyena waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta bari ee Boosaaso. haddana qalabkii ayadu yaallaa qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa. puntland ayaa qabta hubkan ay ciidamada puntland gacanta ku soo dhigeen in al-shabaab loo waday. tallaabadan ayaana noqonaysa mid ciidamada puntland dhanka ammaanka ay u qaadeen waxaana ay qayb ka yihiin dadaallo lagu ilaalinayo nabadda iyo wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed. maxamed muuse tarsan, warbaahinta qaranka, Boosaaso. bulshada magaalada Cadaado ayaa ugu baaqay madaxda Galmudug inay ka digtoonaadaan khilaaf dhexdooda kadib markii isu soo baxyo ay dadka ka dhigeen magaalada Cadaado. warbixintaasi Cabdi Xasan Rooble Awoowe ayaa soo diray. boqolaal dadweyne ah oo maanta isku soo baxay bartamaha magaalada Cadaado ayaa ka mudaharaaday khilaaf siyaasadeed oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhex jiray madaxda sare ee maamulka Galmudug iyagoona ku tilmaamay in xilligan wax dan ah ugu jirin shacabka reer Galmudug oo baahi weyn u qaba horumar iyo nabad. waxaana ay sheegeen inay taageersan yihiin maamulkooda isla markaasna ay codsanayaan in madmadowga siyaasadeed wada hadal iyo deganaan lagu dhameeyo. waxaan ka hadlaynaa maanta oo aan isugu nimid laamiga waxa weeye maalin walbeeto mid hal la rido mid hal lagu mudaharaado mid hal la ceeriyo maantayna ma anfacdo. dadkeennii waa baalaysan yihiin roob ra'aan bay joogaan sixir barar bay joogaan intii maantay wax la dumin lahaayeen wax la dhisaa wanaagsan. marka waxa weeye wax qabada loo baahan yahay. walaalayaal allaha idinka soo aruuriyo haddayna fiirinaynin waddankiinnii dadkiinnii maqastiinnii tabaalaysneed ee dayirtii sixir bararku ku dhacay. dhibaataan ka soo marnay dafaad baan ka soo marnay si haddeetaan degdega in nabiga dooni mayno waan ka soo horjeednaa. waxaan doonaynaa dowladda inay noo dhistaato inay noo shaqayso in horumarka deegaanka iyo amnigaba ay ka shaqaysaan doonaynaa. gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo dadweynaha mudaharaadka dhigayay meel fagaara ah kula hadlayay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan in dadweynuhu ay shucuurtooda muujiyaan. waxaan rabaa inaan dadweynaha uga mahad celiyo isku soo bixina nabadeed waa sii wada katiin annaga ka maamul ahaan degma ahaan waxaanu ku qasbannahay shucuurta dadka ayaana wada dadka annagu iskuma keenin ayagaa isku yimid mar hadday isku yimaadeenna inaan kala soo qayb galna banaanbaxa waa ku qasbannahay maadaama shacabkeenna ay yihiin. annaga rabnawshinaan macno ku fadhin ma rabno gudoomiye baarlamaan in la hida ma rabno madaxweyne ku-xigeen in la hida ma rabno madaxweyne in la hida ma rabno in wax la dhistaan rabnaa annagu in wax dowladnimada hala taageero maalin kasta annaga 2 sano gudahooda laba madaxweyne maraynaa haddana iyadoo sano laftii kale la gaadeen haddana qas kale Galmudug ha ka dhaco dadkaani kama kacaan ummadaani kama kacdo ma noolaydo. Cabdi Xasan Awoowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado. telefishinka qaranka ayaa daawanaysaan daawadayaal. dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in guulo horle ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto kooxaha nabadda diidan ee argagixisada ee Daesh. sida warbixintan uu ku hayo wariyeena Maxamed Cali Axmed. ciidamada Ciraaq ayaa guulo degdeg ka gaaray xureynta magaalada Al-Xuwayja iyadoo dagaalkaasi oo galay maalintiisa labaad ee ciidamada Ciraaq kooxda Daesh ka xureeyeen in ka badan 30 tuulo oo hoostaga magaaladaasi iyagoo 3 jiha ka weeraray argagixisada ku sugneed magaalada Al-Xuwayja. kooxda warfidiyeenada ee la socday ciidamada Ciraaq
ayaa ku soo bandhigay barahooda in ciidamada wadajirka ee dagaalkaasi ku weheliyay ciidamada ciraaq ay u suurto gashay in 30 tuulo ay ka xoreeyaan daacish iyadoo dhulka laga xoreeyay lagu qiyaasay in masaafadiisu ay dhan tahay 530 kilomitir oo isku weer ah. warfidiyeenada waxay intaasi raaciyeen in dagaalkaasi dhex maray ciidamada ciraaq iyo kooxda daacish uu sababay dhimashada tobaneeyo ka tirsan daacish iyo burburinta saldhigyo ay kooxdaasi ku dhulmaaleysanayeen iyadoo dhanka kale diyaaradaha dagaalka ee ciraaq ay hawada ka garaacayeen maleeshiyada ka tirsan kooxda daacish. waa tahay daawadayaal warkii aad kala socoteen caawa telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee Muqdisho wanaagsan.